gabadha daadihisa barnaamijka maalinlaha ah ee dalka Mareykanka ka soo baxa ee lagu magacaabo Wendy Williams oo 54 jira ayaa shaaca ka qaaday inay la tacaalayso la qabsiga daroogada isla markaana waxa ay sheegtay inay ku nooshahay guriga loogu talogalay in lagu dabiibo dadka ay daroogadu daashatay The show cut to black. Mrs. Williams wax faahfaahina kama aysan bixinin la qabsigeeda daroogada balse waxa ay sheegtay in gurigaas ay ku noolayd ayna ka qarinaysay qof walba marka laga reebo bay tiri wiilkeeda iyo saygeeda waxa ay sheegtay in markeedii hore ay la tacaalaysay la qabsiga daroogada nooca kokaynta Mrs. Williams waxa ay sidoo kale madax ka tahay shirkad aan faa'iido doon ahayn oo dadka barta saameynta daroogada waxaana ay diiradda saartaa dhaqan celinta iyo ka hortagga daroogada mar ay dhowaan la hadlaysay barnaamijkeeda The Wendy Williams Show oo ka baxa telefishanka ayay ku sheegtay inay habeen walba aadi jirtay guriga dhaqan celinta loogu sameeyo I have been living in a sober house. waxa aan ku noolaa gurigaasi ayay daawadayaasheeda u sheegtay qofna ma uusan ogeyn sababtoo ah markaan banaanka joogo waxaan u muuqdaa qof dhammaystiran sidaas waxa yiri Williams Wendy mar walba barnaamijkeeda kadib waxa ay Mrs. Williams sheegtay inay magaalada New York uga qayb gali jirtay shirarka ku saabsan la qabsiga daroogada si ay dadka kale uga caawiso joojinta daroogadaasi dadku ma aysan ogeyn bay tiri inaan ahay Wendy wax dan ah kama lahayn inaan ahay Wendy macalinkeeda ka caawiya joojinta daroogada ayaa geen jiray Mrs. Williams guri ay sheegtay inay kula noolaayeen koox wiilala kuwaasi oo ay sheegtay inay weheshan jirtay waxayna ku khasbeen inay habeen walba timaado guriga 10 fiidnimo caafimaadka Mrs. Williams ayaa wax la iska weydiiyay kadib markii ay sanadkii 2017 ay suuxday iyada oo ka hadlaysay barnaamij si toos ah ama live hawada ugu jiray Siciid Axmed TAMREYSE wararka telefishanka caalamiga ah Star